labadoodu marka wada shaqeynayaan waa sidaasi isku dhinac bay sheegayaan aankaas soo shaqeynayaan imika halkaas ogbo wareegayaan Subayr Cabdilaahi Warsame waa muwaadin reer Gibiley oo soo saaray qalabka lagu baaro biyaha dhulka hoostiisa kaasi oo isagu iskii hal abuur ku sameeyay halkan deegaanka Botor oo aanu nimidnay ayaanu ku tijaabinay qalabkii isagoo muddo badan ku soo shaqeynay qalabkaasi Subayr bal qalabka wax naga waramta sida ay aad u ikhtiraaday waqtiga ku qaatay balinta ma sha Allah horta waqtiga marka la eego waxay ugu qaatay waxaan hawshan waday muddo 3 sano maalinkaas ka mid ah horta aan ka bilaabay ceelasha biyaha leh ayaa marka xilliyada roobku da'an ceelku afku imanaya markaas xilliga kaleeshu dhacdo oo kale ceelkii uu guraya dabadna qofkii xilliga wixii la soo saarkiisii bilanay ayaa biyi khasaaraya oo biyi waaya dabadna cabista kan qofkii marka asaasan qosa taasna dabadna ka bilownay dabadna waxa sameeynaa in ceelkii inta aan tagno dabadna aan dul marno ishiisii aan ragno dabadna waxaan ogaanay inuu ceelkaasi uu dhinac halka waan maxaan ku halka waan biyo ay dhinac ka xigaan dabadna aan ku raawo dhinac u noqo dabadna markuu dhinac u noqdo uu biyo fiican helo hatta waxa jira ceelal maxaan ku qofku biyo uu dhex joogo hoosta ka imanayaan oo markuu hoosta ka imanayaan aan hoos u dhaadhicin oo nagu dhaa hoos u dhaadhac dabadna saasi kale halkaas ka soo bilaabantay qalabkan waxay adiga ayaa hal abuuray bal sidee ceelka loogu baariyaa waa sax horta qalabkani waa qalab caalamka ka jira oo jiro oo la isticmaalo oo YouTube-yada meel walba laga helayaa laakiin se dalkeena aan isticmaal ku yari ama aan la eegin anu markaas waxa sameeyay waxaasi aan arkay halkaan ka ikhtiyaar raacay in aan hubiyo sida uu shaqeynayo marka anigu waxaan keenay dadaalka inta nooc oo ka shaqeynaya aniga ayaa ka keenay jawaabada ku sameeyay birtana waxa ka saabsantahay maar biyuura ka samaysantahay waa maar biyuura waliba aad maartu way kala duwan tahay maar waa maar birtu ku badan tahay maartan wax bir leeyahay way ku yartahay kuma jirto min halka biyo wareegayaan tusaalahaan waa biyahaasi waa macaan weey oo waxa ka wareegaysaa midigtay ka wareegaysaa biyaha qaraadna bidixda ka wareegaysaa meesha marana iyaga oo wada shaqeynaysa saas kale wada wareegaya ayay kala jeesanayaan insha Allah waan tus doonaa iyagoo intaas sistema shaqeynaysa awsaawi mudaynta lag bay ku qaadatay oo wax aqabado kala kulmi jireen may wallahi ma sha Allah waxa horta muddo waxaan waday 3 sano ayaan waday ma sha Allah dadkeena markii hore waxaan ku bilaabay inaan ku raado wareebelo waa beeru biyo dhulkan biyo leedahay aan ku baarinaa yaa qodanaya oo dadkina aan bandhigan ku yaa qodanaya waxba laga ma rabo qod un laakiin saan ku tusanaawna dabadna dadkeena waa dad aad u fiican oo marka dad baa kula qaadanayo markaas waani aasaaso markaas wax ku dhigan korna waa dhiirigelin moogtay imika la tira ceelal intee leeyahay ku qodeen wallahi ceelashu way badi intaan soo maray oo gobolkeena Gibiley oo qaybta buuraleyda caad marka laga soo bilaabo ee galbeed marka loo noqdo gobolka Awdal dilo meesha la yiraahdo maxaan ku raadayay geedaqsi intaasi xagga sare oogada markaan idhaahno beerta maanta joogno oo Botora Allah musta'aan beer galoolaya jufada waa inta oogada la yiraahdo markaasi waxa jira laba sistem bay kala duwan yihiin dhulka buuraleyda iyo dhulka maxaan ku raadayay oogadu dhulkan oogada ciidda ayaa maxaan ku raadayay aad u badan oo ciidda laga yaabay in noqoto inta soo joog oo waxa la riiga loo adeegsanayo laakiin buuraleydu way ka duwan tahay oo waxa weeyaan waa dhul dhagax leh biyuhuna waxay dhex maraan buuraha biyaha imika inta badan dhulkeena dadku waxay aaminsan inay biyo badan lahayn balka waran biyaha dhulkeena sida arinta waragta mitriska saacadaadu ay cabirtaa waa ilaa intee arintaas waxa weeyaan horta meesha waqooyi marka la yiraahdo waxay arkaysaa Allahumma salli ala Muhammad 15 mitir oo marka la isku celiyo 7 joogiyo badh adu noqonaya dhulka qaar way ka yar yihiin oo tusaalahaan imiga meesha la yiraahdo geedqso kale joogiyo badh baa lagu gaaraa joogiyo badhkaasi maxaa dadkaasi aan dhibaatay waxa weeyaan biyihii baa qaraadaya qofkii hamiyo joogi badhkii ku gaaray biyihii ayaa wax la kulmaya qaraad niyad jab baa ku dhacaya gacankii macaanana ama galbeed ama bari buu ka xiga wadankeenu biyo ma ladaasina oo beeninaya arinkaasi ana beeninaya ya oo idin tusoonay inaan beeninayo waayo meesha laga helay joogiyo badh laga helay halka laga dheelaa inay gooyn haday jinka kasta saarto halkan imika ceel bayna dul joognaa ka baadhay bal ceelkan macaan baan soo qaleen haa imika ceelkan waa macaan weeyi dhinacan koonfurta iga xigta ayuu qayb qaraari ka soo galaa waan ka soo rarnay marka waxaan ka ilaalinayaa total inay biyo qaraari taabtaan ceelkan halkan imika jooga waa macaan weeyi bulshada waxaan u soo jeedinayaa horta bulshadeena waa dad fiican way dadaalaan laakiinse waxa ku yar qabashada xaqiiqa dhabti waxa weeyi xog waxa la waa inuu wixii xogad ka haysa imika waxaan aaminsanahay dadkeenu afun bay kaleeyeen wadankeenu biyo male laakiinse xog ayaan la haynin
xog cadna waan soo hordhigi doonaa oo waxa jirta joogiyo bar baa lagu helay ku sheegaya laakiin aanu 3 sano ayaan soo wajabay maanta oo aan soo bandhiganana waxa iga soo gabagaboobay standard inaan sheegi karo inta sida u kala baxaan sida ay kala yihiin xataa imika waxa ku jirta arrin aan soo ogaaday oo engineeringa aborka bahalka la yiraahdo waa engineer dundooyinkeena waddanka ku yaala dad ku fiirsado way isku tooseen maxay isku toosiyay xataa waxaad arkaysaa meesha ninkaasi maraa way jilicsan tahay waxaanan aragnay iyadoo meel intuu galay xilliga roobku uu maqan yahay hoostuu tagaa hoostuu qoystaa dusha markuu roobku daana guradu yimaada muxuu gurada u imanayaa biyo hoosaa soo gaadhay oo korku iska degayaa markay biyo hoos u dhacaan hoostu degaya oo caynkaas wey aad baad maasan tahay imika waxaan eegi doonaa qaabka bal ay u shaqeynayaan si qaabka aad u baarto labadoodu marka wada shaqeynayaan waa sidaasi isku dhinac bay sheegayaan caynkaas soo shaqeynayaan imika halkaas ogba wareegayaan ceelkani wuxuu ka mid yahay ceelaha systemkiisa oo aad iyo aad u fiican yahay waayo waxa weey markaan imika wareegaasi markay wado aan ama koonfur u kaco ama bari aan u kaco ama galbeed aan u kaco markaan baxo waxay ii sheegaysaa oo ay soo eegaysaa halkii waxana leedahay marka soo eegta ku leedahay halkii waad soo dhaaftay dabeedna daymadaasi ay daymoonayso waxay ilaa 3 mitir oo kale ayay ka soo eegi kartaa markaad inta soo noqoto halkii wareega samaysaa haddaan halka ku dul wareego halka goobtaas ay ku sheegaysaa Zakariya Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley